Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni toddobaadka teknolojiyadda. Toddobaadkan barnaamijku waxa ku soo qaadan doonaa 5 farsamo haddii la yaraan insha Allah. Waxaan rajaynayaa inaad wada socod doontaan. Bismillahirrahmanirrahim. Farsamada koowaad waxa waaye sida dark mode loogu dhigo Facebooka. Waxaa ku dhufanaysaa menu ama saddexdaas xariiq ee kore. kadib waxaa ku dhufanaysaa settings and privacy kadib waxaa ku soo dhufanaysaa settings halkaan dhowr farsamo ayaa ku taal laakiin waxaa ka dooranaynaa meesha oo socno ah dark mode waxaad ka helaysaa preferences dark mode ku dhufanaysaa kadibna waxaa leedahay on haddii aad rabto inaad telefoonkaaga mugdi ka dhigto had telefoonkeena waa dark mode waxaa naga caawinaysaa in batteriga telefoonka uu safe garoobo iyo sidoo kale in indhaheena iftiin badan uusan ka dhicin. Farsamada labaad waa sida messenger-ka aad sidoo kale dark mode u saar lahayd waxaa ku dhufanaysaa halkaas ay ku qoran tahay chats kadibna waxaa ku dhufanaysaa dark mode kadibna waxaa leedahay on si aad u saartid dark mode. Farsamada saddexaad waa arag boggaaga ama profile picture-kaada si dad kale u arkaan sida adigu aragtid profile-kaaga iyo sida dad kale u arkaan waa wax kala duwan. Si profile-kaaga marka u aragtid sida dad kale u arkaan waxay imaanaysaa profile-kaaga waxaa ku dhufan kartaa menu kadibna waxaa ku dhufanaysaa magacaaga ama waxaa samayn kartaa home adigoo jooga ama bogga hore ayaa sawirkaaga ku dhufanaysaa marka boggaaga imaadid ama profile-kaaga ay imaadid waxaa ku dhufanaysaa saddexdan dhibcood ee profile hoostiisa sawirka hoostiisa ku taalo kadibna waxaa ku dhufanaysaa view as oo ah u arag sida dad kale u arkaan page-kaaga ama profile-kaaga kadib waxaa arki kartaa sida uu u muuqdo boggaada ama profile-kaaga ee dad kale u arkaan. Farsamada afraad waxaa waa sida falcelis aad xiiseyso aad ugu dooran lahayd fariimaha lagu soo diro. tusaale marka fariin lagu soo diro oo aad ka heshid waxaa macquul inaad laba mar taabatid si love ugu saarmo love-kan calaamad ama reaction-kaas oo bedeli kartaa adigoo riixaya fariinta kadibna ku dhufanaya calaamadda balasta saa falcelis cusub ugu darto kadibna waxaa ku dhufanaysaa customize kadib waxaad dooranaysaa falcelinta aad jeceshahay tusaale falcelintan oo kala doortay kadibna waxaa taabanaya calaamadda tigta ayaa taabanaya hadda mar walba oo fariinteeda ama fariin cusub double click ku siiyo waxaa ii saarmaya falceliska cusub ee aan doortay ama aan xiiseeyo. Farsamada shanaad waxaa waaye sidee ku ogaan kartaa ficiladii ugu dambeeyay aad ka samaysay Facebooka waxaa ku dhufanaysaa magacaaga ama sawirkaaga ama waxaa ku dhufan kartaa menu kadib waxaa ku dhufanaysaa magacaaga profile-kaaga kugu qoran waxaa dooranaysaa saddexdan dhibcood ayaa ku dhufanaysaa kadibna activity log ayaa ku soo dhufanaysaa halkan waxaa ku ogaan kartaa falcelinadii ugu dambeeyay aad ka samaysay Facebooka tusaale qof postigii ugu dambeeyay aad like saartay ama comment ka bixisay interactions ama kuwa ugu dambeeyay ee ku codeysay inta halkan ayaa ku ogaan kartaa. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan faa'iidaysteen oo barnaamijka ka faa'iidaysteen toddobaad kasta waxaa ku soo qaadan doonaa farsamooyin dhowr ah oo aad ka faa'iidi doontaan insha Allah. waa mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka.